الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay ayaa mahad leh noo fududeeyay dhammaan hawlihii qaranku noo idmaday inaan si fudud u qabanno waxaan saaka lagu wargelinayaa haddii ilaahay yiraahdo iyadoo la fulinayo amarkii guddiga sare ee xanuunkan ee qarniga ee adduunyada halikeeyay iyadoo la fulinayo ayaa waxaa la amray in la joojiyo jaadka kadib markii laga tashaday dadkii ganacsadayaasha jaadka iyo dawladdu ay ka wada hadleen isku afkarteen in jaadka la joojiyo maadaama oo xanuun baas oo dadka farabaas ku hayay uu jiro oo si kaliya u faafayay go'aanka markii la isla qaatay dawladdu go'aan iyo guddiga sare go'aan bay ka qaateen jaadka waa la joojiyay sidaad arkayso dadkii gaadiidka lahaa iyo gaadiid kale fara badan oo xeradan nagu xigtay iyo xeryo kale yaala oo lagu soo qabtay jaadka dadkii iska lahaa ayaa jaadkii soo raray oo soo guray iyadoo ciidanka booliiska waajibkiisii gudanaya iyo shaqadii qaranku idmadayo gudanaya waa laga hortago gaadiidkan iyo kuwo kale oo fara badan iyo kuwo gobolada yaala baa lagu soo qabtay marka sidaad arkayso waxaa loo buufiyay gaadiidka waxaa la horgeeyay maxkamadda awoodda u leh waa lagu eedeeyay dambigii iyo jaadkii ay siteen iyo waa lagu eedeeyay maxkamaddu markaa go'aan bay ku riday xukun ah in la wareego jaadka laguma eedeysanaashana la xukun lagu riday gaadiidkan lagula wareego sidaana ciidanka booliiska loogu wareejiyay sidaa daraadeed baa kula wareegnay aanan u buufinay waa mahadsantahay